idinku talagalay waxa waaye xarfaha af soomaaliga. af soomaaliga wuxuu leeyahay dadku badanaa waxay xustaan inuu leeyahay 31 xaraf, laakiin xarfaha af soomaaliga waxa waaye waa 32 xaraf ayaa la tiriyaa. 21 waxaa lagu magacaabaa shibane oo afka ingiriisigana lagu yiraaho consonant. 21 kaas waxaa lagu daraa 10 shaqal ah oo la yiraaho 10kaas shaqalka u kala qaybsamo 5 shaqal gaaban iyo 5 shaqal dheer. iyagana waxaa la yiraahdaa shaqalada. afka ingiriisiga waxaa lagu yiraahdaa vowels. waa 31. waxaa jiro hal calaamad oo la yiraaho firgin ama hamzada la yiraaho ama koomada af ingiriisi lagu yiraaho, taasoo runtii qayb weyn ka qaadato qorista af soomaaliga. oo runtii haddii hamsadaasi loo ilduufo amase aan lagu qorin meeshii looga baahnaa, xarafkii macnihiisa uu bedelmayo. hamsada waxaan kusoo qaadan doonaa iyo firganka ama hamsada waxaan kusoo qaadan doonaa cashirada dambe hadduu allaha awoodda la ogolaado. maanta waxaan rabaa inaan bilaabo shibanayaasha iyo shaqalada. marka hore waxaan aqri doonaa xarfaha shibanayaasha ayaan si degan u aqri doonaa, kadibna waxaan u imaan doonaa shaqalka. sidan ayuu u dhacayaa, dhegeysi wacan. ba, ta, ja, xa, qa, da, ra, sa, sha, dha, ca, ga, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. aan ku celiyo shibanayaasha. ba, ta, ja, xa, qa, da, ra, sa, sha, dha, ca, ga, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. intaas waxa waaye 21 xaraf ee la yiraaho shibanayaasha. af soomaaliga sidiisaba dhawaqa ereyga sida u dhawaaqayo waa sidii luqadda carabiga, oo runtii annaga aada noogu sahlan maadaama aan naqaano sida qur-aanka loo aqriyo ama alif waxmalaha loogu dhawaaqo. marka waa isku dhawaaq. qoritigan waa qoritaankii laatiinka ahay. haddii aan u imaado shaqalka af soomaaliga wuxuu leeyahay 5 shaqal gaaban iyo 5 shaqal dheer. haddaan soo qaato 5ta shaqalka gaaban ama short vowels, sidan ayay u dhacaysaa: a, e, i, o, u. aan ku celiyo: a, e, i, o, u. 5ta shaqalka dheer iyadana waxay noqonaysaa sida tan: a, e, i, o, u. a, e, i, o, u. runtii waxooga umalaysaa xoogaa yar inay shaqaladu dhawaqooda runtii aada iskugu dhow yihiin, laakiinse waxa waaye dhawaqa gudaha ayuu ka samaysmayaa sidan: a, e, i, o, u. a, e, i, o, u. a, e, i, o, u. sidoo kale waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaa jiro book oon yar oo aan qoray. buuggaas oo runtii buug bilaash ah. buuggana wuxuu horudhac u yahay buuga kale oo runtii aan ku tala jiro ama gacanta aan ku hayo qoritaankooda, kuwaasoon ugu talagalay xoojinta barashada af soomaaliga ee ubadkeena soomaaliyeed. buuggan yarkaa isaga ah waa buug ka kooban ilaa 10 bog. waa buug bilaash ah. asoo PDF ah ama electronic ah ama danabaysan ayaan hayaa. marka cid alala cidii danaynaysa buugga isagoo yarka ah
haddii aad iisoo dirto emailkayga waa kana, haddaad email iisoo dirto waxaan kusoo diraya asoo PDF ah insha allah. emailkaygana waa kanaa fanax xaaji aadam, emailka waa kanaa fanax58@gmail.com. cashirka xigo waxa waa rabaa inaan kusoo qaato shibanayaasha shaqal iyo shibana israaco. hadda waxaan soo baranay shaqaladii iyo shibanayaashii oo gooni u taagan ayaan soo baranay. haddana waxaan rabaa inaan barano dhawaqa ay sameynayaan markay israacaan shaqal iyo shibane. runtii sida alaabo barnaamijkan waxaan ugu magacdaray quruxda af soomaaliga, tarjumadiisana ay noqonaysa luqadda ingiriisiga, the beauty of Somali language. habadhiciisana adi joor waa bar ama baro. waxaan soo qaatay erey yar oo aan weer yar oo aan soo qaatay oon kaga hadlayo shaqalka iyo shibanaha, muhiimadda ay u leeyihiin ama faa'iidada ay u leeyihiin ama kaalinta wax ku oolka ah ay kaga jiraan qorista af soomaaliga. waxaanan idhi halkan shibanuhu maciin ma leh hadduu shaqalka maqan yahay, waa laba mataanoo afka maamulaayee muujiya shaqaladu. shibanuhu maciin ma leh hadduu shaqalku maqan yahay, waa laba mataanoo afka maamulaayee muujiya shaqalada. haddana waxaan bilaabayaa akhriskii israaca shaqal iyo shibane. waxaana ka bilaabayaaba waxaan siinayaa xaraf kastaba waxaan siinayaa xarfaha shaqalada ayaan shibano kastaba waxaan siinayaa shaqalada oo dhan, mid gaaban iyo mid dheerbo. waxaan ku bilaabayaa sida tan: ba, be, bi, bo, bu, ba, be, bi, bo, bu, ta, te, ti, to, tu, ta, te, ti, to, tu, ja, je, ji, jo, ju, ja, je, ji, jo, ju, ha, he, hi, ho, hu, ha, he, hi, ho, hu, qa, qe, qi, qo, qu, qa, qe, qi, qo, qu. aan ku celiyo: ba, be, bi, bo, bu, ba, be, bi, bo, bu, ta, te, ti, to, tu, ta, te, ti, to, tu, ja, je, ji, jo, ju, ja, je, ji, jo, ju, ha, he, hi, ho, hu. xarafkan xada ah luqadda ingiriisiga kuma jirto oo waxay u dhawaq eg tahay xarafka ha. h ama xarafka h ayay u dhawaq eg tahay, laakiinse waxa waaye waa ha. af carabiga waa xarafka ha, wax ma leh. ha, he, hi, ho, hu, ha, he, hi, ho, hu, qa, qe, qi, qo, qu, qa, qe, qi, qo, qu, da, de, di, do, du, da,
de, di, do, du, ra, re, ri, ro, ru, ra, re, ri, ro, ru, sa, se, si, so, su, sa, se, si, so, su, sha, she, shi, sho, shu, sha, she, shi, sho, shu, da, de, di, do, du, da, de, di, do, du, a, e, i, o, u, a, e, i, o, u. mar labaad aan ku celiya si ay ubadkeena uga bagtaan israaca shaqalka iyo shibanaha ama shibanaha iyo shaqalka. da, de, di, do, du, daa, dee, dii, doo, duu, ra, re, ri, ro, ru, raa, ree, rii, roo, ruu, sa, se, si, so, su, saa, see, sii, soo, suu, sha, she, shi, sho, shu, shaa, shee, shii, shoo, shuu, da, de, di, do, du, daa, dee, dii, doo, dhuu. xarafkan isaga ah ee sha waxaa israacday sa iyo ha ayaa israacday, waxaana loogu dhawaaqaa sha. waa sida luqadda ingiriisiga haddaad aragto s h israacayso sha ayaa loogu dhawaaqaa. marka soomaaligana sidoo kalenta waayo haddii sa iyo ja ha israacaan waa sha. sidoo kalento xarafkan isaga ah kuma jiro luqadda ingiriisiga ee dha. marka da waxaa loogu dhawaaqaa markay israacdo da iyo ha ayaa loogu dhawaaqaa dha. okay, sidoo kalento xarafkan isaga ah luqadda ingiriisiga c ayaa loogu dhawaaqaa, laakiin af soomaaliga waxa waaye ca. ingiriiskana ma laha xarafkaas ca la yidhaaho, oo waxaa loo isticmaalaa erega a ayaa booskiisa ay geliyaan. haddaan kasoo qato tusaale cabdi, markii af ingiriis loo qoray waxaa loo qoraa abdi. so eeda ayaa waxaa galayso booskii cada. dhawaqan wuxuu noqonayaa sidan ca, e, ci, co, cu, caa, cee, cii, coo, cuu, ga, ge, gi, go, gu, gaa, gee, gii, goo, guu, fa, fe, fi, fo, fu, faa, fee, fii, foo, fuu, qa, qe, qi, qo, qu.
قا خي قي قو قو كا ك كي كو كو كا كي كي كو كو لا ل لي لو لو لا ل لي لو لو ما م مي مو مو ما م مي مو مو أنكو عليه مرلبات جا جي جي جو جو جا جي جي جو جو ف ف في ف ف فا في في فو فو قا ق قي قو قو قا قي قي قو قو كا ك كي كو كو كا كي كي كو كو لا ل لي لو لو لا ل لي لو لو ما م مي مو مو ما م مي مو مو قا ق قي قو قو قا قي قي قو قو كا ك كي كو كو كا كي كي كو كو لا ل لي لو لو لا ل لي لو لو ما م مي مو مو ما م مي مو مو نا ن ني نو نو نا ن ني نو نو و و وي و و و و وي wo woo ha he hi ho hu ha he hi ho hu ya ye yi yo yu ya ye yi yo يو أنكو عليه مرلبات نا ن ني نو نو نا ن ني نو نو و و وي و و
waa, wee, wii, woo, wuu, ha, he, hi, ho, hu, ha, he, hi, ho, hu, ya, ye, yi, yo, yu, ya, ye, yi, yo, yu. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. This is Fanah. So, learning Somali language will be broadcasting 3 days a week. So anyone who is interested to learn Somali language through KTV, the local TV in Mankero, can follow the program, which runs 3 days a week. Saturday from 6:30 p.m. to 7 p.m. Sunday from 8 p.m. to 8:30 p.m. and Monday from 8 p.m. to 9 p.m. So this program is called Learning Somali Language through KTV, the local TV in Mankero. And these are the 3 days. And I hope if you are interested to learn Somali language and you are non-negative Somali speaker, you will get a lot of advantage to this program for learning Somali language, because the lessons are well prepared and intended for the non-Somali speakers. The first lesson that I wanted to share with you today is about Somali alphabet. In Somali language, there are 32 letters. 21 of them are called in Somali shibane, which means consonant, and 10 of them are called shakal, which means vowels. So that apparently Somali language has 21 consonants and 10 vowels and 1 comma, which is called in Somali hakat or firgen. First of all, I wanted to introduce you the consonant, the consonant letters, or what do you say in Somali, shibanayasha, harfaha shibanayasha, consonant letters. This is how it's written, the consonants, and this is how it sounds. So let's start, and please listen carefully. Ba, ta, ja, ha, kha, da, ra, sa, sha, da, a, ga, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. And this is the sound: ba, ta, ja, ha, qa, da, ra, sa, sha, da, a, ga, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. So that was the 21 consonant letters in Somali language. So let's now see about
the vowels. So we say we have 10 vowels, 5 short vowels and 5 long vowels. In Somali we call shaqal vowels. Gaaban means short. So we have 5 shaqal gaaban and we have 5 shaqal dheer. The short vowels are a, e, I, o, u. Again, a, e, I, o, u. And the long vowels are a, e, I, o, u. To get the exact pronunciation for the vowels, I got an example for English words that applies exactly the sound of the vowels. A as in man, e as in 10, I as in tin, o as in lock, u as in bull. A as in farm, e as in fish, main fish, I as in feel, o as in ball, u as in food. And these are how the vowels are pronounced. So the vowels are very important part of the Somali language. So I hope if you get the exact pronunciation of the vowels, it will be easy to you to read a Somali language within 1 week. So the vowels are a, e, I, o, u. A, e, I, o, u. A as in man, a as in farm, e as in 10, e as in fish, I as in tin, I as in feel, o as in lock, o as in ball, u as in bull, u as in food. Now we want to go for what we call pronunciation practice. Pronunciation practice. We say in Somali, tababar ku dhawaaqa erayada. So this will give you how to pronounce the words. It's kind of training how to pronounce the word. The following words contain consonant, a vowel, and a consonant. Practice how to pronounce these words. Pay attention to the short vowels. Erayada soo socda waxay ka kooban yihiin shibane, shaqal iyo shibane. Ku tababaro sida loogu dhawaaqo erayadan. Fiiro gaar ah si shaqalada gaaban. So now we have a word. This word is the combination of consonant with shaqal, vowel which consonant with shibane. So it starts with the shibane consonant and shaqal with vowel and consonant. So we want to pronounce this word in Somali language. It's lap, bal, hel,
nin, dun, deb, hal, bad, bet, iyo, ama, rog, hir, jar. So I will repeat again, and then you will try to read, and I will give you a chance to read that words to practice the pronunciation of the words. So this is the combination of shibane, another shibane, and the middle you can see a shakal. So shibane, another shibane, and shakal, which connects the two shibane, and you will get the word or the sound lap, bal. So these are all short vowels, shakal gaban. So you have to make sure. And sometimes in here we start with shakal gaban. Bismillahi rahmani rahim. Walaalayaal, daawadayaal, dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenii imtixaanaha ahaa aan ugu talagalay barashada afka Soomaaliga. barnaamijkaas si gaar ah aan ugu diyaariyey ubadkeena Soomaaliyeed ee ku dhashay ama kusoo barbaaray wadanka dibadiisa inay ka bartaan afkooda hooyo. barnaamijkan waxaan ugu magac daray quruxda af Soomaaliga. habudhiciisana wuxuu ahaa bar ama baro. casharka saddexaad oo caawa raba inaan idiin soo gudbiyo oo ka mid ah casharadii gaarka aan ugu diyaariyey inay ka baxaan telefishinka la yiraaho KTV ee ku yaala magaalada Mankeero, kaasoo isla markaan laga daawan karo magaalada North Mankeero iyo magaalada St Peter, iyo cid allaale ciddii haysato adeegyada Jarar iyo Invitis. haddii aad haysta adeega Jarar ama kebalka Jarar, waxaad ka fiirsan kartaa janalka 181. haddii aad haysta Eventis Ekris Hikritak, waxaad ka fiirsan kartaa janalka eber 7 ama 5 eber 7 oo HD ah. maalmahan waa maalinta sabdiga ama af Soomaaliga lagu yiraaho soo roge 6:00 fiidnimo. maalinta axadda ah oo Soomaaliga lagu yiraaho koobin, waxaad ka daawan kartaa 7:00 ilaa 8:00 fiidnimo. maalinta lamin oo ah isniinta, lamin waa af Soomaali, isniinna waa af Carabi, sidaa ula soco. maalinta lamin waxaad ka daawan kartaa 8 ilaa 9 fiidnimo. waana barnaamij runtii xiiso leh. waxaan ku dhiirigelinaa dhammaan waalidiinta Soomaaliyeed inay kaga faa'iideeyaan barnaamijka isaga ubadkooda. casharka aan rabo caawa inaan idiin soo gudbiyo runtii waa cashir aad u xiiso badan. wuxuu cashirkani ka hadlayaa shibanayaasha. waxaan soo qaadanayaa shibanayaasha iyo shaqaladii. on niri 31 xaraf waaye. 31 xaraf ayaa waxaan rabaa hal inaan soo qaato oo xaraf kastana aan siiyo tusaalo, 3 sawir oo tusaale u taagan ah. marka ereyga wuxuu u taagan yahay sawirka ka koreeyo, sida ula socda. marka ma u baahna saan u malaynaa turjumad iyo qeexid fara badan, oo erey kastaba waxaa ka turjumaya sawirka koor yaallo oo u dhigmo. marka runtiina cashirkan isaga ah ciyaalkeena waxay ka faa'iideysan doonaan ereyo badan oo af Soomaali ah, sida xayawaanka ama waxyaalo badan oo maalin kasta guriga aan ku isticmaalno ama aan ku adeegano guriga. cashirka waxaan u bilaabi doonaa 2 mar ayaan akhri doonaa. marka saddexaadna waan hangaadi doonaa oo si degan ah. la socod wacan. baal, bakayle, buug. baal, bakayle, buug. baal oo loo hangaadiyo la, bakayle ka ya la buug
ga ta tiir tuun toon turub ta tiir tuun toon turub ta tiir oo loo hingaadiyo ta ii ra tuun toon dadka qaarkood waxay ugu dhawaaqaan tuun dadna waxay ugu dhawaaqaan toon labadaba waa la yidhaahaa ta uu na tuun toon ta oo na turub ta u ra u ba turub ja jalmad jeer joodari ja jalmad jeer joodari jalmad oo loo hingaadiyo ja a la ma a da jalmad jeer ja ee ra joodari ja oo da a ra i joodari xa xaaxeey xarig xabad xa xaaxeey xarig xabad xa xaaxeey xa aa xa ee ya xaaxeey xarig xa a ra i ga xarig xabad xa a ba a da xayawaankan isaga ah xaaxey ayaa la yidhahaa af ingiriisina waxaa lagu yidhahaa ereygaas isaga ah xabad halkan waxaa ujeedaa waxaa waaye xarafkii labalama ayaa soo galay oo ah xabad qa qad qalad khamiis qa waxay ka dhawaaqaysaa dhanxanaga qa qad qalad khamiis qa qad oo loo hingaadiyo qa ka iyo ha markay isku tagaan waa qa a da qalad qa a la a da khamiis qa a ma ii sa khamiis da dameer darin dooli da dameer darin dooli dameer da a ma ee ra darin da a ra i na dooli da oo la i halkan waxaa ku jiro la oo ah ka mid ah xarfaha labalaabmo dooli ra rah roob rooti ra rah roob rooti ra rah oo loo hingaadiyo ra a ha roob ra oo ba rooti ra oo ta i rooti sa sac sariir saxan sac sariir saxan sa sac oo loo hingaadiyo sa a a sariir oo loo hingaadiyo sa a ra i ra sariir saxan
oo loo hingaadiyo sa a ha a na shaati shaati oo loo hingaadiyo shaati shabeel shinni shaati shabeel shinni shaati a ta i shaati shabeel a ba la shinni i na i shinni halkaasna waxaa ku jiro na oo kamid a xarfaha labalaabmo okay dhac dhar dhiil dhurwaa dhar dhiil dhurwaa dhar dha a ra dhar dhiil dha i la dhurwaa dha u ra wa a caano cambe canab caano cambe canab caano oo loo hingaadiyo a na o cambe a ma ba canab a na a ba geel geri guri geel geri guri geel oo loo hingaadiyo la geri ra i guri u ra i guri faras faro faynuus faras faro faynuus faras oo loo hingaadiyo fa a ra a sa faras faro fa a ra o faro faynuus fa ya na u sa faynuus qaadan ma shidno qaadan fi waa qalin qamadi qanjiciil oo af ingiriisiga lagu yiraaho ereygaas isaga ah qalin qamadi qanjiciil qalin a la i na qamadi a ma a da i qanjiciil a na ja i i la qanjiciil kaneeco koob kursi kaneeco koob kursi kaneeco oo loo hingaadiyo a na o kaneeco koob oo loo hingaadiyo o ba kursi oo loo hingaadiyo u ra sa i kursi la libaax liin lug la libaax la liin la lug libaax
oo loo hingaadiyo la I ba a xa liin oo loo hingaadiyo la I na luk la u ga ma maroodi ma miis ma moos ma maroodi miis moos maroodi ma a ra oo da I miis ma I sa moos ma oo sa moos na nal na nacnac na nibiri na nal nacnac nibiri nal na a la nacnac na a na a nibiri na I ba I ra I nibiri wa waayeel wa wabi wa wiyil wa waayeel wabi wiyil waayeel wa a ya ee la waayeel wabi wa a ba I wabi wiyil wa I ya I la wiyil ha hilib ha hooyo ha homboro ha hilib hooyo homboro hilib ha I la I ba hooyo ha oo ya o homboro ha o ma ba o ra o homboro ya yaanyo yaxaas yeey ya yaanyo yaxaas yeey yaanyo oo loo hingaadiyo ya a na ya o yaxaas ya a xa a sa yaxaas yeey ya ee ya yeey walaalayaal intaas waxaa inooga eg tusaalihii aan usoo qaatay shibanayaasha haddana waxaan u gudbayaa tusaalihii aan usoo qaatay shaqalada ka bilaabo a aar aqal ari aar aqal ari so ari waxaa la yidhaahaa soomaalidu badanaaba ariga waxaa la yidhaahaa markii isku jiraan idaha iyo aricadka riyaha ayaa waxaa la yidhaahaa ari isku jirkooda ayaa waxaa lagu yidhaahaa ari ee sidaa ula socda aar
oo loo hingaadiyo a ra aqal a kha a la aqal ari a ra i ari eber e eber e eelo e ey eber eelo ey eber e ba e ra eelo e la o ey e ya i il il erit i il il erit il i la il i la erit i ra i da o oohin o olol o orod o oohin olol orod o oohin oo loo hingaadiyo oo ha i na olol o la o la orod o ra a da u ul unsi uur u ul unsi uur u ul u la unsi u na sa i unsi uur u ra uur walaalayaal cashirkeenii saddexaad oo ahaa casharadii gaarka sida gaarka aan ugu diyaariyey k t v caawa intaas ayuu nooga egyahay inta aan ku kulmayno cashir kale oo xiise leh oo lamid a cashiradan aan ugu magac daray quruxda af soomaaliga waa anigoo ida leh kulanti wacan oo xiise leh wassalaamu calaykum waraxmatullah waliyat dhegeyso oo aqri kan xarafka waxaa la yidhaha waa la ereyadan oo dhanna waxay ka bilowdaan ama ay ka kacaan xarafka la sawirada libaax oo loo hangaadiyo la i ba a xa labo oo loo hangaadiyo la a ba o lug lugo oo loo hangaadiyo la u ga o lugo liin oo loo hangaadiyo la i na wa xarafka ca calan oo loo hangaadiyo ca a la a na cag oo loo hangaadiyo ca a ga cambe oo loo hangaadiyo ca a ma ba e caleen ca a la e na caws ca a wa sa caws da
dawaco da a wa a ca o dameer da a ma ra dayuurad da a ya uu ra a da dayuurad dallad da a la a da dallad digaag dooro da i ga a ga dooro da oo ra o daaqad da a qa a da dibi da i ba i dibi ga waa xarafka ga geel ga la guri ga u ra i gal ga a la gal geed ga da geed gaari ga a ra i gaari gambar ga na ba a ra gambar qa qaanso qa a na sa o qaanso qorax qa o ra a ha qorax qalin qa a la i na qaado qa a da o gasacad qasacad qa a sa a da qasacad waa xarafka na naag na a ga nal oo loo hangaadiyo na a la nal nacnac na a na a ca na a ca nacnac nin na i na nayl na a ya la nayl ma waa xarafka ma muus moos oo loo hangaadiyo ma uu sa ama ma oo sa masjid ma a sa ja i da masjid markab ma a ra ka a ba markab maroodi ma a ra oo da i miis ma ii sa miis mas ma a sa mas mindi ma i na di i mindi waa xarafka ra waa xarafka ra roob ra oo ba roob rak ra a
ga raad ra da raad rah ra ha rah xarafka ha hal ha la hal haween ha wa na haween hilib ha la ba hilib haan ha na haan waa xarafka ba balanbaalis ba la na balan baalis ba la sa balanbaalis baal ba la baal bas ba sa bas bisad ba sa da mukulaal ma ka la la yaanyuur ya na ya ra xayawaankan isagaa runtii aad buu u magac badan yahay waxaa loogu yeeraa bisad mukulaal yaanyuur yaan dufo marka magacyo badan ayay leedahay xayawaankan isaga ah ayuu leeyahay xayawaankan isaga ah baranbaro ba ra na ba ra o baaldi ba la da baaldi baabuur ba ra baabuur buug ba ga buug dha waa xarafka dha oo da iyo ha markay isu tagaan waxaa loogu dhawaaqaa dha dhigo dha ga o dhigo dhar dha ra dhar dhagax dha ga ha dheg dha ga dheg sa sariir sa ra ra sariir sakaaro sa ga ra o sagaaro san sa na san sac sa sac sha sa iyo ha markay isku tagaan waxaa loogu dhawaaqaa xarafka sha shaati sha ta shaati shinni sha na shinni shabeel sha ba la shabeel shimbir sha ma ba ra shimbir shan sha na shan waa xarafka ka kitaab ka ta ba kitaab kabo ka ba o kabo kursi ka ra
sa i kursi koob ka oo ba koob kirli ka i ra la i jalmad ja a la ma a da jalmad waa xarafka qa oo ah ka iyo xa markay isku tagaan ayaa waxaa loogu dhawaaqaa qa qamiis qa a ma ii sa khamiis qudaar qa u da aa ra qudaar qad qa a da qad qajaar qa a ja aa ra qajaar waa xarafka ja jiir ja ii ra jiir dadka qaarkoodna waxay u yidhaahaan dooli jeeg ja ee ga jid ja i da jid waa xarafka fa fure fa u ra e fure faynuus fa a ya na uu sa faynuus faras fa a ra a sa faras far fa a ra far waa xarafka ta tuke ta u ka e tuke dadka qaarkoodna waxay ugu dhawaaqaan duke oo meesha ta'da ayay waxay dhiga ku bedelaan da duke tuke ka labadaba loogu yeeri karaa ta u ka e tuke tusbax ta u sa ba a xa tusbax toon ama tuun ta oo na toon timo ta i ma o timo waa xarafka xa xarig xa a ra i ga xarig xaaqin xa aa qa i na xaaqin xoon xa oo na xoon xidig xa i da i ga xidig wa waa xarafka wa wan wa a na wan wiil wa ii la wiil waran wa a ra a na waran waraabe wa a ra a ba e waraabe walaal waxa weye cashirkii isaga ahay oon ugu talagalay barashada af soomaaliga oo maanta aan kusoo qaatay shibanaha af soomaaliga iyo tusaalooyin sawiro la socdo oon ugu talagalay inay ubadkeen u noqoto naqtiin caawa intaas ayuu nooga egyahay inta aan ku kulmayna kulanti dambe oo xiise leh waa oday fanax oyda leh wasalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaat iyo kulan dambe oo xiise leh
أقونت أما ليس مسيح ما أفتحي 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 أقونت النية لئيس تنكرا مايا مايا ما أفتحي أقونت النية سوء الكتاب مايا 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 وانتو وصائب الأشياء أيينا رسائي عنك وانتو وصائب الأشياء أيينا رسائي عنك مؤسسي كذلو ما أبو رزقك Maya, 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 wait to say,
Hello everybody, this is Ustad Fanah, and I'm going to share with you another Somali lesson which is specially prepared for those who are interested to learn Somali language, especially non-Somali speakers. Today I want to talk about, I will make revision for Somali Alphabet. Especially I will divide for the consonants and the vowels. So first of all, I wanted to share with you the 21 consonant letters with an example words. So here we have akri erayadan ka bilaabanayo shibanayaasha, which means read these words which begins or starts with the consonants shibanayasha. So these are the consonants of Somali language. So they are in order. So in Somali language, we don't mix for the consonants and the vowels. They are separate. So we have 21 consonants and 10 vowels, which we can say 5 short vowels and 5 long vowels. So that's 31, and also we have apostrophe, which we can say in Somali hakat or firgin. So we have 32 letters overall, but they are not combined together like English language. So we say 26 letters in English language. So the vowels are just combined with the consonants in English language, but in Somali language they're kind of separate. So we write just for the consonants, the vowels, and the firgin. So these are an examples for the consonants. Okay, for example, we say ba, ta, ja, ha, ka, da, ra, sa, sha, da, a, ga, fa, kha, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. So for example, ba, bat, ta, timo, ja, jit, ha, haqin, qa, qalat, da, dukaan, ra, rooti, sa, saaxiib, sha, shir, da, dik, ca, cabitaan, ga, gacan, fa, far, qa, qalin, ka, kabo, la, lug, ma, maraq, na, nabad, wa, walaal, ha, hambalyo, ya, yaxaas. But sea or ocean, timo, hair, jit, road or highway, xaaqin, cruiser or sweeper, khalad, wrong, dukaan, shop, roti, bread, saaxiib, friend, shir, meeting, dek, ear, cabitaan, drinks, gacan, hand, far, finger, qa, qalin, pen, kabo, shoes, look, leg, maraq, soup, nabad, peace, walaal, brother, hambalyo, congratulation, yaxaas, crocodile. So not important to understand the meaning the words in English language, but the most important thing to me is just to understand how the words are combining with the consonants, which is shibene, and the vowels, which is the shakal, which is the vowel, like ba, a, da, bat, ta, i, ma, o, ti, mo, jit, haqin, khalat, dukaan, roti,
saaxiib, shir, dhig, cabitaan, gacan, far, qalin, kabo, lug, maraq, nabad, walaal, hambalyo, yaxaas. And also I want to mention, I think every one of you knows about the phonology or phonics, which is the relationship between the letter and the sound, and how the letter sounds when it's in a word or in a sentence, when it's in the word. Okay, in English language, matter of fact, the letter sounds different when in the word. For example, let me take this an example for this letter in English is Y, and this is H, and this is W. So alphabetically it's Y, but when it's in a word or sentence or used in a word, it sounds like yeah, yes, yellow. So that means the phonology of the word, that means how the word alphabetically is pronounced is different when it's in the word. So we say Y, but in the word we say yes, yellow, yesterday, and so on. And H is simple, so we say H, but when it's in the words or in sentence, it sounds like different. Like we say he, okay, he, okay, horse, hunt, horrible. So the word sounds like ha, but it's H when alphabetically reading. That's W, but it sounds like wa. So that's kind of the relationship with W, wa. So how the letter is pronounced and how it sounds when it's the words wa. But Somali language, the letter sounds as it is pronounced as alphabetically. There is no difference at all. This is wa, walal. This is ha, hambalyo. This is ya, yaxaas. This is na, nabat. This is ma, maraq. La, lug. Ka, kabo. Qa, qalin. Fa, far. Ga, gacan. So also I want to mention for this word and this one, qa, which is not stressed like khalat, but this is stressed on khalin. So it goes down the throat, khalin, but this is outside, khalat. So this word kh we don't have in English language. Also dh, da, we don't have in English language. Also we need to make sure that this in English is C, but in Somali language is A. It's very close like A in English language, A. But now it's abdi. And I believe the other letters are the same like English alphabetic or English letters, like SH, sha, yeah, she, shirt. So like it's the same way. Also, I want to just go again and just give you an example about the vowels, which we call in Somali shaqalada. Okay, lately exercise akhri, read erayadan these words, okay, which starts with the vowels. A, e, I, o. Ader, ader, ehel, il, o, onkut, ukun. A, e, I, o, u.
aamus, eedo, iib, iib, oori, uun. Adeer means uncle, ehel means relative or close related, okay, relative, ehel. Il, I, that's I, il. Onkut, thunder. Ukun, ek. Amos, quiet, or be quiet, or silent. Edo, ant. Ib, for sale. Ori, wife. Un, creature. Our next lesson is about just, it says, akwi, again, which means read, erayadan, una firs, that means give special attention, the change which happens when it's singular to plural. So make sure that you give special attention how the word changes from singular to plural, or from Kelly to water. Kelly, singular, water, plural. Miis, miisas, daaqad, daaqado, kursi, kuraas, mas, masas, sabuurad, sabuurado, albaab, albaabo, geed, geedo, beer, beero, jalxad, jalxado, nin, niman, wiil, wiilal, gabar, gabdho, naag, naago, oday, odayaal. So these are the singular and this is the plural. So you see how it changes, mas, masas. So, sorry, miis, miisas. Miis means table, daaqad, window, kursi, chair, mas, snake, sabuurad, board or blackboard or whiteboard, albaab, door, gate, tree, bear, farm, jalxad, it's a water container, traditional, it's jalxad we call Somali traditional water container, which is made with clay. Sometimes we call ashun or jalxad. Nin, man, wheel, boy, gabar, girl, naag, wife, oday. So this word oday has different meaning. So old you can use with old man, nin oday ah, and also we use as a chief or the elder of the family, odayga reerka, the elder of the family. So this is the exercise is for you, and I hope you will do this exercise without my help, and it's very easy, and it's based upon what we learned before. Office, so erayadan. Okay, give attention to these words. Which one is the first? So just we need to arrange it, to make order, like Somali consonants, ba, ta, ja, ha. So you have to make order in order. So write these letters as they order it, okay, in order way. So that means you're going to start with ba, and it's like book, and you found it was next. So you can just go for orderly, okay, according to the Somali consonants, as we see the previous lesson. So hopefully I will just stop today's lesson in that point, until we come another Somali lesson.
about for the Somali speakers who are interested to learn Somali language. I want to say you goodbye and hope you have other nice meeting. Good night.